waxaa la falanqeynayaa ciyaartii quruxda badneed ka dhacday Muqdisho Stadium kaasoo la soo dhigayo beejijka ciyaaraha ee caalamiga ah ee intaas oo malaayiin haysta. This was the scenes at the Mogadishu Stadium in Somalia when some African legends like Samuel Eto'o, JJ Okocha and Emmanuel Adebayor played a friendly day. Laacibiinta Adebayor iyo sidoo kale JJ Okocha goolasho ay dhaliyeen isoo kale wacdarihii ay Muqdisho Stadium ku soo bandhigeen shacabkii daawanaya ayaa la soo bandhigaya maadaama ciyaar qurux badan ay dhacday saddexda lejan oo Samuel Eto'o ku jiro ay ciyaareen ciyaar qurux badan oo saaxiibtinimo ah sidoo kalena ciyaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale soo booqanay kuwaas oo ka socda oo gudi ah Sekafa Africa iyo sidoo kale gudi ka socda FIFA oo qiimeynayay kubadda cagta Soomaaliya lagu ciyaari karo Muqdisho Stadium iyo sidoo kale goobaha sportiga ee Soomaaliya ee lagu tababarto iyo sidoo kale si da'da yar loo tababaro ciyaartooydan waxay soo bandhigeen ciyaaro qurux badan dad badan oo daawan jiray yaraantoodina maanta ay si toos u arkeen waxa kamid ah laacibka goolka dhaliyay ee lagu magacaabo Good Geese kaasoo asagoo da'yar daawan jiray laacibiintan markuu dhaliyo fanaanad ayuu la baxayaa wuxuu sameynayaa dabaaldegii Cristiano Ronaldo suwi kadibna wuxuu leeyahay halay bedelo daama farxad ay u ahayd inuu la ciyaaro la jamiin hore oo garoon la galay inaba caadi ma ahayn yaraantaadii laacibiinta daawo jirtay garoon la gal waa wax inaba caadi ahayn laacibkan Good Geese ee baraha bulshada ku matalaya dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa muujiyay dareenkaas.